إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، ورمضان waxaan filayaa waa waqti malaadadku daalay, laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha allahu tacaala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqaat almuhadara, awoodaha allayna siiyey subxaanahu wa tacaala ee aynu dayacnay ama se aynan adeegsanin. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu nimco idinku galladaystay, wuxuu badhaadhiya sareediya barwaaqo idin siiyey. haddaad tirisaan baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ma koobi karaysaan. nimcooyinka alle subxaanahu wa tacaala ma aha wax tiro lagu koobi karayo, laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iidaysanaa ama se adeegsanaa. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama se aynan ku qanacsanayn. maalan waa ramadaan, dadku inta badan qur-aan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaat iyo duca ayuu ku jira. markaynu milicsannay in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore, waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn. markaad aragta awooddooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana. maanta waxaan ku dhuftay kutub الrijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray, dabeetana waan galay. waxaan eegay bal culammadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo uun waxay qur-aan hayeen. maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur-aan iyo intaasoo kitaaboo kale u qaybsanyay qur-aan qura. innagu keenna qur-aanka qayba ayaa maa shaa allahu taagantay. kaasaynu majiirannaa farta ku tilmaamna waxaa la yidhaahdaa intaasoo xaafid baan leenahay ama hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeennii akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda, waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno. oo kaannamaa marka lagu yidhahdo waa bukhaari intaasoo 100,000 oo xadiid buu qaybsanay, waa imaamu axmed oo 1 milyan oo xadiid buu hayay, waa awsaaciyo intaasoo 100,000 oo xadiid. nin walba marka lagu yidhahdo 100,000 oo xadiid oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhan baan kitaabba ku qorrayna uu korka ka watay, bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu qur-aanka subaca ugu fadhiisanaabay xadiidka subaca ugu fadhiisan jireen. dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dol akhriyi jiray, wuxuu maxfuudaadkiisao dhan intuu ku dol akhriyo ayaa laysla sixi jiray oo la kala eegi jiray. innaga maxaa taaqadan iyo awooddeenii xaggay ka baxda? dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan, waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska, waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno. muraayadaynu xidhannay aada u qallafsan. muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno. taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamme ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno. taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto, shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israano berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa. noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro. waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo, laakiin silsiladaan idinka jibinaya. yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin, awooddii iyo taaqadii allayna siiyey subxaanahu wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin. waayo shayga nolosha ay u baahan tahay. maalmaha ka mid ah waxaan galay netka
dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoon iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyaa uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu caziimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way ka buuxdaayo waa lagu tusi waayey Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xoogiisa arkaabay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awood iyo nimcad iyo xoog Alle siiyay subhanahu wa ta'ala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo as-suhba as-salihah al-mushajji'ah in la helo dad fiican oo aad gargaarsato oo raacdid oo aan musbitiin ahayn aan dad dhulka kugu nabaya ahayn dad kor ku qaadayo kor ku sii wadaya waxa laga yaabaa wali ina u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa quraanka 30 maalmood saad ugu qaybaysaa inay mas'ala riyaa tahay waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete san ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay page-ka quraana imsaad ku qaybi kartaa page quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani waa imisa page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray يعني مصحف كان إنه آخرنا نبى قعنتي سكو قري مطبعة دي وحماها نبى قعنتي سكو قري عثمان طه كتاب كان هو قري وحوسه ما يسيء قابة شنية طبعا صدر بيت كستابين وككوبين هي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوا اللي بلا باتم بيتشينو يهي مركا لقى الرئيبو جسك كوادة فاتحة دي انتان لقرحيي كاسوا كوبيا لباتم بيت مركا لقى تقايسنا جسك وقدام بيا جس عامة oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 3 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu dhahnaa 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi ودقيقة دي بط صحيح كما بيج كواحد أخري كرتا دقيقة دي بط قفك جابية صدّن دقيقة دو جسك كوا أخريها بيج كي وح أخري كرا محي دقيقة هي بط بكو أخري كرا صدر إمسات كو حفدي كرتا مركز إمسات شير كو عليشه هل صدر مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمي سجور مركز أخريدات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد انت ساعة صدر
ilaa lam yalid imisaad ku qaybaysa markaad imise goor akhrido mar 2 3 4 5 6 7 8 imisaad ku qaybi karaysa haddii aan idhaahdo maalan 5 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarkaa markaad akhrido 15 sadar imisaad ku akhriyaysaa marka yacni sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha bejkii minute iyo badh baad ku akhriyaysay minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay bejkaa 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nuso saaci bejkaa 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nuso saaci wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahdo buu yidhi 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muxaawalee 8 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahda buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa bejka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay idhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddaad bejkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo bejka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nuso saac akhri qur-aanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto 60 loo qaybiyo waa imisa waa 5 bej dad min saacad kasta 5 bej baad qaybi kartaa haddaad 5 intaa ku dhufato waa 22 bej iyo badh macnaheedu waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 bej labada bej iyo badhka tuur 20 bej waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyey haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan 27 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxana iska xisaabaad sheegtay sheekhay practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga haddaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل يسوح قاضي وح عجز قليي ملائكته آدم عقل يسو وحو قاضي محي سقران كنت الماميو وح عجز قليي ملائكته با آدم عقل يسو قاضي سكال هذا المامو وحنا دلي هدي أينو يسكر ابنه أفكارتن لينو أخريا وحبل ما قيبي كرو وحبل ما أخري كرو وحبل ما برن كرو وحوا صعب وعلى ارتجابي يتاس هدي تال الريبو وحلنا وح بدن وفضودان يباشره بل أن بعد التجارب يسون نقليان تلمامو قبل هوانا يا واحد تري وحي يقو قاضتي آل عمران يا البغرين قيبات تضبص النضوط كدب يا بالرمضان شنية تبن كدب أنك يوحي لبيت الإيوان اعتكاف تجيا وحن قبنا يا بيت الله الحرام أفر عبورة روانا استابيت الإيوان وروري مركا ما الآن ريرك يقول دقني نوان دقني دبت أنا محاض قبنا دون شنية تبن كعشر رمضان كي أدقي مقيي يعني سويدية بيلاد أنا قال آدم مهمومة بيتري آدم ورير سنبان إنترنت كقالي waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid al-rabiici website-kiisa waa website dadka quraanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al-imraan ku qaybnay أنا تضبط سنة ضد بيقول صقعت تبي ترى البقرة يا العمران إن الغيبة
waxaan arkay bay tiri dumar le 3 maalmood baan ku qaybnay albaqara iyo ali cimraan dabeetana waxaan sidii buu yidhi maad qoladan waxa wax ka bedelay maadna gashi website-kan register gareeyay bay tiri waxaan rabaa inaan member ka noqdo dabeetana waxay gashay dowraad uu bixiyay sheekhu oo la yiraahdo dowraad tagyiir al-aqli buu bixiyay dowraadkiis dowraadka maan bedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabbah baan saacad yar baan halkan dhigtay bal inaan page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiri 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qaybay dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib baan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyay 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 16 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 16 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلا الله يدهدا يد واحد لدي أنا وحن سمية مسألة الله يدهدا الاعتكاف بالقرآن بين سمية بيتنا لبعتن مع الموت بين القرآن كقيبة غريبة لبعتن مع الموت بين القرآن كقيبة بيلاد وليبا بيلاد إيمان هين قفض مراعد لتشوكتي أفر عرهورة يا بهود يا جوري يا رير كان وين مامول يوم ودي بيلاد هبن كم مغرين ساسي درادد بوحي شيء سائل هذي دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن الصعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي ايام بلا بيت مسا مالنتي هورتا لح صفحات بان قيبي بيت وان ودا يوم مركي دنبه waxaan gaadhay bay tirina 12 صفحات qaybi karo maalmihii ugu dambeeyay waxaan gaadhay bay tirina 50 صفحات qaybo maalintan khatimayna 27 صفحات baan qayba 27 صفحات waa imisa صفحتي هدين نيجيسكو ولا 20 صفحة ضادي مسون غنيا سدح جيس يبرد يا داراد وليبا لبا إيه 7 صفحة ضاد ما أنتي ودن بيصير قيمة بيلاد لكن مسي يكون فردي هلا ده فرق الله تنكر ساعات سداد إلا 8 ساعات بن حفظي وفردي سداد إلا 8 ساعات أيان حفظي وفردي أي كنت المام ساحبين كنا لبا ساعات بن سيحن شري مالنتينا لبا ساعات يبرد بن حبين كنا سيحن شري مالنتينا إسناب يروم بن قادن شري إن يروم بن ده جدود سنشري كدبنا وكاكعي شري وهي برشك بيسوقية بيلاد أيان عند مايا وحلقي أبا إن مسائلك كان كيا بنتهين لكن وحيد هذان حديث سبب طلع قرطبة هذان بطل العجب وحوالي بمركات سبب تقررين وحوين بكليات كيا ضيورة عكام رأس مركات ركتو والبلدة تنمحاها يبات سويدين لكن هدي الغور دقيقة ساي وحد دولان يساعد ها وهني لو حن بلي سوق جيا بدأ واسك كعان وكل فضانته يعني قفك بني آدم كي مركا وسبب تاقونين وحوالي بغريب بيلين وحد جوين بيلين لكن هدي الغور سبب يا الغور ريسن جريا وحلوش شجوا وحوي فضادا إلهي وحين سي سبحانه وتعالى مسكح داني آد بويرتي شركة إن مركا لغو ميزامة بيدادان و 2.5% وزنك شرك بيدادان و كن صدح بقول إيا صدن جرام ميلا حسبكو تلماما نسكو علنت كيلو إيا وحوغا ير ويا مسكح دكو جرتا هاوين كان بيدادان رقو 4 جرام بكوية يعني نسكو علن يانا 4 جرام بكا كميزان يريه مسكح دا سي waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa shidku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaaliya waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter decimeter kama taqaanay centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegi somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yiraahdaan waxa ay qaadi kartaa
waxay qaadi kartaa bay 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta leegaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كستا 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كستا 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برغسي هل كان من يتبع لحدا سكنه سكند كستا أما ثانية كستا أو كم إذا نلاش قفك هدي الله شيء قبوا لي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات الله قوة habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حسابي في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 بليون معلومة أي في الثانية معالجة ku samayn karta يعني كمبيوتر dunida yaala saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan أحد العلماء baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala haddii inta la yareeyo buu yidhi caqliga bini aadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yacni all telephone dunida yaala wax allaaliya waxa switch dunida yaallo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayuu أحد العلماء waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yidhi inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay يعني بني آدم كيبلدي سوي حسابه سكو حدا كمبيوتر استراتو بس كحدا يرى أديك إلهي كوجر ركبي شقة يقبضه وحو قابن كرائن للسماية وحي قادن الله يدبولي حجمي تضواب بقول إيه تضوابات متر سكوير أو طبعا طبق كور لورد سي حجم حاسوب لك بولي برمجدي سي مثال السماين كرابو ملي تاي يد الربا يعني برنامج كل شقين لها أنت لو سماين كرايو يد الربا waxa meesha yaala wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada mesela haddaad halka dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe ku daalaysa baad leeyahay gacantiba way kabuubiyootay haddii lagu yidhaa saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaa iyo hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro howlgab baa ku dhaca howlgabku soo ugu dhacaya مثلا مثال بسيط أنا دسياني يقول داعي
barbaraanigoo ka soconaya gaadhi fuushan buu nala qallimay gacan baan ka jabay dabeetana bahalladan yaryar ee lafaha gacanta ku jira ayay buray mid ka mid ah jabtay waa lay rakibay ilaa halkaa lay xidhay 45 casho markay ku xidhnayd baa layga furay jabuuta laygaga furay dabeetana waxaa la yidhi wale waa ku jabantay dib baa haddana lay rakiba yurub baan la tegey 70 maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen weli way ku jabantay ma laftii yarayd weli may rakibmin laakiin gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaasay joogtaa dabeetana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imika khatar kala ku haysatee gacantan sidaynu u kala bixin lahayn baynu tijaabinaynaa laftana iska jabnaato waxba layma qabtee physiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqaa sare cududaa laygu dhegaa waa layga cabaadiyaa 3 cashaan imaada xoog baa lay qabtaa waa laygaga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa lay sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta dambe ay gacmaha isku dheerari labadeedii gacmood way isleegiin ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinayay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaasa waxa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar in lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeye waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weyn mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka markay iska bixiyaan waa feedha yar yar laakiin cagu waa weyn waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciyaa kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud bukhaari haddii la qali lahaa maskax inteeda leeguma ku jirta kama badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaye ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa albert einstein einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmala markii dambena maraykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegaya iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxaasoo dhamay nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen waxa yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaniin waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yiraahdeen sadraadeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jira iyo غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadam aqligii baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad إمام أحمد وحو الرميسنا وحو حفظيين مكتبة سيهين أبو زرع وحو الرميسنا مكتبة سوحو قيبين ايتاي شافعي ساسو الرميسنا أئمدي هو رساسو ننكو علمي سلابتي سكسيت كمانكم ككتابة ينشيغي إنه إمام الطبري بارددي سوحو لي أنا دين يري تفسير قرطة همدا يراتي بو يقولوا دايمك وحبا سدن مجلدات بو يري تفسير سدن مجلدات بو يرينيا وحانو لي همدا يراتي ما يرانتم با لغو بلابا مايا بعض العلماء با وحي قرين كتاب لا يداهدو
man xafida alqur'aana bacda al40 buu nin qoray 40 jir raggii dhaafaya qur-aanka qaybay oo maxaad qur-aan sheegaysaa azhar a'immadeedii nin ka mid ahaa 54 jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam alakbar lilazhar laakiin 54 suu magaalada isaga joogay markuu 54 jir marayay ayuu yidhi nimaad wax baratid horta waqti badan baaba kaa lumaya waa bilaaba azhar buu soo galay dabeetana waa soo waday waa soo takharujay imaamul azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir daadiisuna marayso 94 sannadood meelahaasaan filaya inuu ku dhintay mise 90 meelaha laakiin wuxuu dhintay isagoo imaamu azhara yani wuxuu aaminsanaa awoodda iyo daaqada ku jirtaa inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa idan waxa mushkiladda meesha taallaa baynu leenahay ma aha waxa mushkiladda meesha taallaa waxay tahay kow innagoo jahligu inagaga sugayay nafteenna ilaahay inuu ina leeyahy subxaana wa tacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun wafii anfusikum afalaa tubsiruun ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegayo le wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxaa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo samayn kari weyday hadda aadan inankiisii umaad adna tahay meel kale kamaad iman aadamkaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala asmaa oo dhan baa la baray inankiisii baa tahay taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto masalada markaa meesha taalla waxa weeyaan jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga alla ku siiyey subxaana wa tacaala iyo awoodda aad haysato sida daraaddeed ayaa waxaa dhacday in aad waxba qaybi kari weydo ama inaad wax baran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahy almu'minu alqawiyu khayru waaxabu ila allah من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوغا إمام النووي وحلي حوغا لشيء وقوة نفسية بولي mu'minka xooggan baa ka khayr badan buu nebigu yidhi mu'minka daciifka ah labadabana khayr baa ku jiro dee iimaan baa ku jira nebigu wuxuuna leeyahy ixris calaa maa yanfacak ixris aw ixras labadaba waa la sheegaa ku dadaal baa la yidhi waxa ku anfacaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caynkaas buu ina leeyahy waxa uu ina leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wastacin billaahi walaa tacjis ولا تعجز ولا تعجز لبدا ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسين عجسك وويني وأدقو أودا دا أركي وايه إن آدمكي ولالكي دليواكي أودي سيباركي وايه دبتنا ولالكي ونتور تسكي قسيتي إلهي سبحانه وتعالى وصدر محي غراب تكوح بره دبتنا وحولي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي ورما وحن كعاجسي ما وحن كهوس مري تكهكا حوق ووقبي جهل قاهي حوقيسي ووقبي تكهن علمي ككرلي جهل قاهي تكهن السلسلة دي كحد نيد بكفري والسلسلة عن ربينا إنه قلب تسكفر يعني قف بني آدم وإلهي سبحانه وتعالى وأبو ريون وحقيبي كريني ما جره بل waxaan tilmaamaynaa leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaala bal ay abwaabta u samaysteen baabu tacawud min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah saxiixaynka iyo kayrkiiba ku soo arooray ducada nabiga inay ka mid ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu waa darran kaa magan galay iyo wahsi iyo tabardarro waxaan tilmaamaynaa leenahay mushkiladdeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday sida awgeed
ay waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxaabay ku qanceen qur-aankana inaan la qaybi karin koow qoladeenna qur-aanka qaybtayna waxa laga yaabaa inay bes halkaa ku qanceen halkaa haddii la gaadhay halkii u sarraysay in la joogo laakiin waxaan leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal innaga ka fursad badan markay furaska tahay furaska bukhaari wuxuu lugaynayay intuu bukhaare ka soo lugeeyey ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam ilaa iyo xijaas ayuu maalinba dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhammeeyey siduu u waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxaa laga yaabaa kili combyuutarku aad taabataa inay kaa xigto ama kitaab aad maktabadda ka qaadataa inay kaa xigto wuxuu bukhaari intaa la lugaynayay furaskii adigaa haysta laakiin waxa yaallaa waxa weeyaan hankaagaa yar hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenahay xaqiiji baa yar marka horeba meel fog baanad kama fakeraynin qofka bini aadamkana hadduu hankiisu yarya waxba maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mida riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inan muslimadoo masriyadii 2 maalmood bay ku qaybtay atacjabuun waa riyaad saalixiinka waa 2 kun oo xadiis maalinba kununba iska tuurta 2 kun oo xadiis 2 maalmood bay ku qaybtay muna saciid gabadhan la yidhahdee macruufka ah waa gabadh xifdiga ku macruufa buluuq ilmaraam 7 saacadood bay ku qaybtay buluuq ilmaraamka soo ma taqaaniin kitaabkaan dhigatana buluuq ilmaraamka la yidhaahdo 7 saacadood bay ku qaybatay muna saciid waxay qaybsantahay ilaahay kitaabkiisa saxiixaynka bale waxay qaybsantahay al-ummahaat al-14 waa haweeney 14 kitaab ee sunanka ugu waaweyn bay korka ka haysaa dadka hadda nool الشيخ محمد حسن ولا الدودو شنقيط يا شيخ غنا وشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتك داف 40 فنا بحفظ سني وحلقة يا مكتبة هذا أنت كتاب طالي أنت قلبك يسقو شراين وكيسقو بطه وأنا قف بني آدم أنا أفرتك بقاري أما يمكن أفرتك كطلابية وهن وحكني علماء الشناقطة شنقيط مركا تكتو قف أن وحو يقان قيب سنين بما تشوقه shanaaqidadu ma bini aadam ka gaara bini aadamka kala maya waa niman afrikaana oo inoo eeg oo reer miyiga oo geela haysta iyo inta aynu haysanno oo nolosha intaynu kaga noolayn ka sii liidataba kaga nool laakiin waa wada xifdisan yihiin nin kastoo sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan wala duddagoaba wuxuu leeyahay 40 fanni ninkaan wax ka aqoon de sheekh lama yidhaahda buu yidhi 40 fanni ninkaan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaano wuu qaybsan yahay waa wax fudud wax weyn maaha inan Soomaaliyeed waa Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yidhi markaan salaada subax ka baxaan fadhiistaa ilaa 7 dhowr bilood buu ku qaybay quraanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat ibn Malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat Suyuti in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay shaatibiyada in yarbu wuxuu soo qaada iska qaybayo sheekh imka urduniya oo khaliijka culimada ka shaqaa kamid ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaaya meelaha ingiriiska joogay buu dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun 2 sano meelaha soo masaajid isku xidhay hatta waxaad aragtaba uu qaybsan kitaabka aad istiraado balkan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya ما أها بشر عادي يدك كانه يعني ددك كجديسن معها هوشاد هيسابوه هيان شقادة قبطابي قبطان سدح دمري قبان وأبيين عرور بيو شقيان واحد وضابي قبطان لكن حقيه وحسكوي دارسين وحين لاني واحد وحسكوي دارسين لبضا شيء بقى وباهنين نفهمنه إنه هني لأنه عالي الهمة إن النقطة qofka caaliga ilhimma waxa lagu yaqaanay inuu caziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaab ka tuurta maya ma inuu noqdo qof caziimo leh fa idaa cazamta fatawakkal cala allahi buu ilaahay yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliga ilhimmiga waxa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibn al-jawzi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho
inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqonnimo buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqonnimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada uu qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilahay yidhi yaxyaw kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamayaa waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ninka dadaala ee dantiisu aakhira tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa uga mahad celiya waxay leenahay qofka caaliyilhimmaga ahi waa qof wakhtiga bakhayl ku ah waayo 12 minid haddii beyj qur'aana lagu qaybayo imise saacadood baa kaa luma maxaad 12 kan kaaga dhigay wax weyn waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan atacwiid waxa la yidhahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waaye bay yidhahdeen meel kaloo isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weeye waxay dhahaan caqliga bini aadamku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci qaybna waxay ku sheegaan alcaqli albaatin aw illa shucuuri alcaqli alwaaci waxay ku tilmaamaan waa caqliga soo jeeda waa caqliga taxliiliya waxaan xawaastu ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warrama fakara wax sheega caqlina waxaa la yidhaha waa caqli albaatinka caqli albaatinku waxay yidhaahdaan waa xajmi aad u weyn isagu caqli alwaaciguna waa wax yar bay yidhaahdaan laakiin waxaa yar baa hogaamiye bay yidhahdaan caqli alwaacigu markaa wuxuu u dhigmaa bay yidhahdaan waa naakhuudaha doonta wada doon weyn buu wadaa laakiin isagu waa naakhuudo yar caqli albaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu caqlulbaatinka caqlulwaaciga ka sare waa kan fakere ee taliya ee warrama ee warka sheega laakiin intaad soo jeedana wuu soo jeedaa markaad hurdanaysna wuu seexdaa wuu maqan yihi caqlilbaatinku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba wuu soo jeedaa wixii loo dhibana waa ilaaliyaa caqlilbaatinka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin altasdiiq watakraar baa ugu badan bay yidhahdaan in la fahamsiiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay yidhahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa dabeeca iyo sajiya iyo caada iyo suluuk buu bedelaa yacni dhaqan buu bedelaa maalan waxaa laguu sheegay xadiid nebi calayhi salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato socankaa maaha xadiidkaasaynu haynaa maalinta koowaad ee xadiidka laguu sheegay ee sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiidkii hadhow markaad maqaaxida tagtaan ee shaah dalbataan umaad bidixda iskaga yara qaado markaasuu sheekhu ku yidhi ka daayo midigta ku cab waad iska dhigto midigtaad ku qaado waan ilaabay baa tiri sheekh midigtaad iskaga cabta 3-4-5 casho hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa umaad xasuusanaysaa adagaysaa mastoonaysa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtumaad ku qaada weligaa bidixda ku qaban maysid waad iska barata waayo waxay yidhahdaan caqli albaatinkaay degtay uma baahnid inaad fikirtoo tidhaahdo ma bidixdaan ku qaadaa ma midigtaan ku fikrad lagaama rabo inaad tidhaahdo bidixda iyo midigta teebaa go'aanku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay yidhahdaan maalan askarta askari haddaad doonaysa bay yidhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto is idhaahdo socod bilow bidixduun buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidixda kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli lbaatinku bay dhahaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli lbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlulbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daalli intaad ku miirowday uun markuu marinayay
waxa la mid ah xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun inta dulka xaadisay caqli waaciga haya oo safxadaad ka fakaraysa oo aayadda ku xigtaad baadi doonaysa oo kelmadaad eegaysa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa inta wali caqli waaciga baa xifdiga ugu jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakartee sida faatixada loo akhriyo ayaad akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan waqtigeena ka faa'iideyno oo isku dayno inaad waqtiga ka faa'iideysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay barino tala saarno gabadhaan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa sujuudaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaan aadaan ku dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedo marka dhameeyo ma idhaahdaa ilaahu aadaan ku dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam أعجز الناس من عجز عن الدعاء dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaasa ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kasta aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarano waxaynu u baahanay maalan cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yidhaahdaan caqligu marka wax qaybayo waxay yidhaahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo kolba derbi daawanayso ka fiican ولذلك بيد هذا أن أرضك حافظك وحقيبية وإنه قيبة ميلو عقلك تركيزين كره وأنه وح مشغولية أركي كارينو سادر أدب العلماء وحيدانا أنت أقول بدن لا قيبس وح وغفي عن سحورتي يوحي كدم بأي إلا صلاة الصبح إلا أنتاسي وهي وقت قابل أن جوي قنوة هادي ضوضاء يقيلية بوغتون مغلي ما يسيد علوشنا بيد هذين مبوحدة علوش هذين بوحدة ينا وينكار وهي ديقه انت بدن عبتود مشغوليسا لكن markan bay leeyin jirkuna uu fudud yahay calooshuna ma buuxdo dhiiga inta ugu badan la maskaxda qaadanaysa qofkuna uu tarkiizin karaa bay yiraahdaan idan waa waqti الحفظ bay ku tilmaami jireen culimadii hore inuu yahay waqtiga ugu fiican ee uu qofku wax xifdi karo waxaad kale oo u baahan tahay imaam Hassan al-Basri baa wuxuu lahaa war nafta buu yiri hadaanad xaq ku mashquulin baatilka ku mashquulinaysa nolosha ma jiro waqti firaaqa leeyahay imika bishan horta waan shaqeynaya bisha shaqeynaysa qayb waayo noloshu waqti firaaqa ama ma leh mar kasta hawl nooca un baa ku haysata sadaradeed buu wuxuu leeyahay imaam Hassan al-Basri war naftan hadaanad iyada xaq ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysa adigu shughul ba waayimaysid adigu shughul waayimaysid mar hadaanad shughul waayina adigu shughulka xadee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga ka soo fulo ahmiyad ku kala leh oo priorities ku kala fog waxaad kale u baahantay albi'a almuthabbita inaad ka tagto dadka cagsi galiye waxba lama qaban karo waxba nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaaga in waxa la qaban karo culamaa nafsi waxay yiraahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يراهدان شيغان waxay yiraahdaan risalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dambaalada negative-ka ama xun مثلا bay yiraahdaan ilmaha yara quraanka aad u dhigaysaa tidaada qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culamaa nafs way waxay leeyihiin hadii lagu celceliyo aqlul baatin ku galaabay yiraahdaan aqlul baatinka waxa galana hore uma soo noqdaan saadaradeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihiin inuu fashiliyay oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yiraahdaan tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tiraahdo inaad adigu yara samayso tiraahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halka u bax intaas ugu filan bay leeyihiin inuu qaybo ولذلك حتى waxay yiraahdaan markay culamaay kuwan psychology markay ka waramayaan waxaad rabtay waxa laga yaabaa nafteena inaan wali baran waxaad rabtay nafteena ka dhaadhicay inta cid la fadhiisata bay yiraahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yiraahdaan ma arinta ka war waxay leeyihiin dad cid la fadhiisata waxa tiraa quraanka waan qaybi karaa waxay leeyihiin waa risaala loo diray bay leeyihiin aqliga aamusnaa حتى بيد هذان سيد النيجاتيف كاها واستعمال بيد وايا تضمبو قبطا بيد هذا مثلا نيجاتيف اكو استعمال يعني
ma awoodi karo inaan ma ihi faashil ha odhanin bay dhahdaan faashil ku qabanayaa bay dhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya adadhe bay dhahdaan waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo matalan iminka bay dhahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horraysa faraska madow bay qabanaysaa bay dhahay haddii iminkaan ku yidhahdo faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفط إنا دوش نلش الصعوبات بيلاضي ودالي كرتا مشكلة باكاهر ما كرتا وحاسي لكن وحلو بهينة كدول بودو وحلو بهينة طاقات كي كوكو كيت سناينا ديبو أديكستو وحلو بهينة سديبين نلش سديب كاو قليتا وحلو بهينة مركاينة تنهضا وانقابن كرا واقيب كرا سيدا أوجد nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay yidhahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika baa waxay yidhahdaan jawharadu bay yidhahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad istiraahda daahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way daahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yidhahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyo nuskoob baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaallay haddaad biyo ugu darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay yidhaahdaan dadka muhbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mid a baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay unaanad ku dayin inaad kala bixiso يعني waxaad u baahan tahay inaad kala bixiso aqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay daaqada alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigtay iyo waxa soo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaad u baahannahay alcawaamil almu'athara alkhaarijiya waxa nafta dhiirigeliya مثلا haddii lagu yidhaahdo halkaa 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saa ma ku taagnaa karaysa ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagnaadaa $10 buu leeyahay cid dhici lahayd inaad arki jirta ma malaynaysa lama arkeen waayo $10 baa muuqda $10,000 haddii la sheego 4 saacadood oo qudhoos la sara taagnaado dhabar iyo meel ku xanuunta baad isgeejinaysaa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batee taagnow 10 iyo 5 iyo 10 baa u i'tikaaf inaad quraan xifdido culamadan ku sheegaan leeyahay waxaan baadhay man xafida alquraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayin wad qariibsanaysa xafida alquraan kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba wax buu qaybi karaa daa kasta joog cid aan la hadlaya maanta ma ha dhalinyaradu hadday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa da'da roon ee isla waqtigiiba idin dhaafay war habeenidii kama tegin ninkaasi
konton afartii jirka ahaa 54 sano jiray baan leenahay Sheikhul Azhar noqday idan aqligiina alla uu ku siiyayna waad haysataa waxaad kale u baahantahay waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iidaysato waxay yiraahdaan hajmatul waqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato waanu ka dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahay makaan munaasaba inaad heshido aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahay bay yiraahdaan muntadim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahay bay yiraahdaan tikraarkaasi tirada badan leh inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa ama akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal ma xaj kamida xajajka ayaan tagay أحد العلماء بان خيمديسا كسoo booqanay niman dhalinyaro baa la joogo fataawida ka fatwoonayay markaas wuxuu dhigay nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay quraankii qaybeen sunankiina way qaybeen imikana musnadu imaam ahmed 40 kun oo xadiis imaam ahmed ay hadana wadaan buu yiraahdo waa qaybayaan wana ma dhalinyaro iska caadiya wana la caadiya ku nool deegaanka waan la inugu eegin waxa la inay waxba lama baran karo waxa la inay waxba lama qaybi karo waxa la inay waxba lama noqon karo sadaraadeed baynu waxba noqon weyne laakiin maanta waxaan idin leeyahay war waxba noqon kartaa bukhari way idin ku jira ee wala soo qaban laayeeyo bukhari kalmad ba soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibn rahway ahad a'immat alhadith shuyukhdiisi kamida isagoo jalsadiisa fadhiya ayuu sheekhu maalintii wuxuu yiri ما الله هلا لو مد إذن كإذن كم مدي تلو مو أرورية حديث النبي كاس حدي كلمة ده بخاري قب كتري سواء جلسة إسكفر ديا أيوم بشيخ يسوي حدي تلو ما الله هلا نين إذن كإذن كم مدا وأرورية حديث الصحيحة هذه الكلمة بقى أنفع ذي إمام البخاري ده تنوحه حد حدي إنه كتابك بخاري قرأ لكن بخاري إنه قرأ جهد كبحية هبينك اللباطن شير بكعي شري مررك قاركود هبينك اللباطن شير أي مررك قاركود فينوس كشيدان شري إمام الذهبي إمام البرزالي محدثها إمام المزني أي الرجل محدثين تودى تشوغينا أيام علينا أركي ذهبية وحقرية ذهبيات بو فرفعنا ذهبي وحكوه الري علم القراءات هي قرآن هي حفظ هي حاجة سكوه الري دبتنا إمام البرزالي مبارك يسقوا وحقرا يوم كسوري خط كاغو في عنا وخط محدثين كلمة داون باب قبت ربا ليري إمام الذهبي مركز صور دقاقي علم الحديث والذهبي هو ابن حجر وعبي بيا إلى وحفظ قيس هيسي نين بايري ورفر في عاني دي فرتي أهل الحديث كاد لي ضيون بالويري فرتي أهل الحديث كو يا شيء دبتنا يعني أرى با الله شيء إمام الذهبي دبتنا كان دقاير النقضة إمام الذهبي درس كان ما أنت عن وضعي مركز وحان ربينا ندين شيء علماء ديني تكتي dad khawaariqul aada oo gaar oo qiina gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon yahanada maanta jooga dunida la leeyahay cirkay wax u diranaya halkan ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysan ninkii bilaabay Watson سجال إياه سجاشن شير مركو كبحي مركونات كيبو وبحر تسمعون لا مدبر ربيون الشداء علم جيب برجع بلوغا هاي وذي ووضع وبحي ويداون وكسر نقضاء ووضع 1000 مرة بو كش ذي بين هذا مركونات كيبو إفيه توينا قولي في سنة الله بدأ دريده نبى جم إيوايون إلى النقطين أنا كجمين بهاشنا بحدم وياني dabeetana markuu gami waayay un bay aakhirkii laamadii baxday dunidoo dhamina waa taa wada laamada noqotay kelmadaan raba maanta waxay tahay programmingkii hore ayaa formatting la idinkaga sameynaya taarifoon luqadda computer waa taqaaniin baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la format gareeyay bay yiraahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format gareysaan كفورمات جريسان عجزًا إيه وهني كان إيه وحب الله ما قبل كرو تعمل لنا قديقة ويدك يهرنا واندين كشيء كوا ما أنت شوجنا تصالحهم كبديين عن دين كسيو قار لبعتن عشكو قيبي يقار صدم كو قيبي يقار بخاري يصحيحين كقيبي
war haddadan مثلا لبدا إن شيء نكم ده دكتور يحيى الغوثي ما يا دكتور يحيى اليحيى حفاظ الوحيين هو ويب سايت كلا إيراني كله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب رجينيني يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتك يا قرآنك ما تقارن أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا مع الموضوع لقو قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatahay ayaa la iskareeya ardabu la iskareeya xarameynku keena labada bilood ayaa quraanka lagu qayba waa dawra li hifd alquran lixdan cashaa meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin laga rabixin cunada un la cunaa loo i'tikaafsay in quraankaas un la akhriyo la kala dhageysto lixdan ka cashar ku qayba sunan ku dadka qaybsiya نظام قارو اسكالي وراعه اولا بخاري هي صحيح مسلم كو انت اسكو وافقين بصو ururiyay كتاب قارو قري كتاب كسار دد لو ديبا متفق الشيخان با لا قيبسيه كدب اي ardayga waxa la qaybsiyaa man farada bihi al-imam al-bukhari oo gaara wixii imam al-bukhari oo dheer yahay waxa la isku ittifaaqsay kadib ayuu qaybsiyaa wixii imaam muslim uu munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhari inta markuu qaybsiyo alfaada ay mukhtalif yihiin baa la qaybsiyaa kadib wuxuu raaciyaa sunanka la soo qaadaa abi daawud wixii aan bukhari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa intaas la qayba tirmidi wixii aan saddexdii kitaab hore ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa rag un buu soo saaraa sunanka qaybsan idan waxaan leeyahay شبابك حفاظ يا قرآن كهي يجا وحن لا يبلو باتين هذا قرآن كه هيسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دم بينك وآخرين يا الله ينارك كتاب كآخر أنت كقيبة بس أئمة المسلمين الدمان تدعي كاسيها كتب تود اللاب تود كوسيتين إمام الشافعي قبل يسمعوك شيء هاكيلو هذا علمه waxa qartaas ku qoran ma habuudo waxa qalbigaaga ku sidato Ghazali baa leeyahay bari kutub soo rartay isagoo wata tuugi heshay markaas ay dhacdo rasuul war kitaabadu iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war saxaab ay ku yiraahdeen kitaab leeyne maalintaas uu tashado yiri cidlaad qodays wixii dama uu qayba de tuug dama muxuu ka qaaday kitaabkiisi laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka كلمة تاني وحياة فرا واحد إن نصوص صارنا ذهبي يا بخاري يا مسلم يا شافعي يا أبو حنيفة يا مالك ويد كبوحان هذا علوم مادية هنا أينشتاين يا غير كيبا ويد كوتشيران لكن هاكو قنعنا وحبا قرن ميسيدي يا وحبا برن كريم ميسيدي يا مال عدلها بات شوفتا يا أدو أفريكان باتا يا كباتا يا عجمي باتا وحسوا شاكو طاقة ألا كسية إلهي وقام هدي عليه سبحانه وتعالى اسكن الدينة ديك ستو رجع هلكن كوي اعتكاف سنة وحلا يدين كل إحدى عشات تجابين يسامبا إلى قرآن كقبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته